dukaankan idin muuqanayo waxa lagu magacaabaa Ocean View waxaana ka mid yahay dukaamadii dhawaan ku xirmay rabshadihii ka dhacay ee gobolkani KwaZulu-Natal ee dalka Koonfur Afrika balse horaantii bishan ayaa lagu guuleystay in dib loo furo dadaal dheer oo ay sameeyeen jaaliyada ku nool magaalada Durban ayaa dib loo furay qaar ka mid ah dukaamadii ku xirmay rabshadihii ka dhacay wadankani Koonfur Afrika walow ay weli jiraan goobo ganacsi oo xiran gobolka KwaZulu-Natal ee dalkani Koonfur Afrika waxa uu ka mid yahay goobaha inta badan ay ka bilowdaan rabshadaha ka dhaca wadankani Koonfur Afrika marka laga soo bilaabo 2008 oo ay ka dhaceen rabshadihii ugu badnaa dalkani Koonfur Afrika 2015 2019 2021 2025 iyo 2026 oo kooxda March and March ay ku dhawaaqeen in dadka ajaanibta ah ay isaga baxaan dalkani Koonfur Afrika waa kan Saciid Mire gudoomiyaha dhalinyarada oo igu wehlinayay socdaal aan ku maray qaar ka mid ah goobaha ganacsiga Soomaalidu ay ku leedahay magaalada Durban dukaankan aan jeedno aan dhaxdiisa maanta joogno waa dukaankii kamid ahaa dukaamadii xaafadda Clement ku yaalay ee 3 bari ee bishii July xirna waxaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala noo fududeyna dib u furno koodii bisha August waxaana 2 August ku eka diiwaangelintii dawladda hoose iyo doorashooyinka dawladda hoose waxaana iska jirta dalkan Koonfur Afrika waxaan ku joognaa amaan kira ah sida ummadda Soomaaliyeed ee ka warhayso waxaan rajaynaynaa in Ilaahay subhanahu wa ta'ala amaan buuxo u nasiyo way jiraan meelo ay dadka tuugada ay lacag ka qaataan hase ahaatee waxay u muuqataa dalka Koonfur Afrika in amaankiisa ay lagu tirsan yahay amaan kira ah waxaan rajaynaynaa in jaaliyada Soomaaliyeed fikirka ka duwan ee la timaado waxaan caqabado ku haya tuugo fara badan oo meelaha qaar ee dadka Soomaaliyeed u aamineen inay wax qabanayaan laakiin waxay u muuqataa kuwa xaaladahan markay yimaadaan oo kale ka dhuumanaya inay dukaamadii lacag ka qaadi jireen soo garab istaagaan dadka deegaanka oo aan wareysi la yeeshay isla markaana ka gaabsaday inay ka soo muuqdaan kaamirada ayaa sheegay inay aad ugu faraxsan yihiin in dib loo furo goobaha ganacsiga iyagoo walaaca ka muujiyay xirnaashaha goobaha ganacsiga ee Soomaalidu ay ku leedahay deegaankan gobolka KwaZulu-Natal